بسم الله الرحمن الرحيم وحنا maanta halka inaan ku duubno fariin ku aadan sida ugu habboon ee lagu hortagi karo cudurka ama fayraska coronavirus ee adduunka ka dilaacay dalkeenana maanta laga sheegay Allah naga badbaadiyay taas oo ah nadaafadda oo diinteena nafartay saas daraadeed waxaa jirto habka ugu muhiimsan ee lagu hortagi karo inaad gacmahaaga dhaqato meel walba oo joogto ay nadiif ahaadaan oo aad ka nadiifiso fayraska waxaan haddana isku dayi doonaa inaan tusaale ka bixino sida lagu sheegay WHO ama hay'adda adduunka caafimaadka adduunka iyo dhaqaatiirta ay ku sheegeen in gacmaha loo dhaqdo waxay naga tahay dhiirigelin qof kastana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay arrintaas sameeyaan si dadka intooda kale ugu daysadaan haddana waxaan bilaabaynaa gacmo dhaqashadii bismillahi rahmaani rahiim kow marka ugu horeysa waxaan dhaqaynaa biyaha ayaan gacanta ku dhaqaysaa gacmahaaga nadiif ah shaambo iyo saabuun wixii aad haysato gacmahaaga ayaad calaacasha qaybta kore dhaqaysaa calaacasha kale sidoo kale qaybta kore ee gacmaha ama faraha qaybtooda kore qaybta kale gacanta kale faraheeda qaybta kore ayaad dhaqaysaa gudaha faraha ay isqaafinaysaa gudahaad ka dhaqaysaa gudaha kale ee farahaad ka dhaqaysaa labada gacmood oo isku haaya ayaad dhaqaysaa kan kalena sidoo kale waxaasoo dhan ujeedku waa in fayraska la dilo kabacdi waxaad dhaqaysaa suulka kabacdi suulka gacanta midiga kale kabacdi waxaad si habsami u dhaqaysaa calaacasha kale kabacdi waxaad meeraysaa farahaaga oo dhalin gacmaha labadii gacmood waxaa qasab ah inaad gacmaha markaad dhaqdo tissuegaas ama paper towelka wixii loo yaqaano anshiyaha musqusha inaad hesho ama shukumaan nadiifa wax nadiif ah inaad ku dhaqdo dadka qaarkood tubada aan ku dhaqanayo waa sensor laakiin dadka qaarkood tubada waa midii la furayo la xiraayo gacmahaaga u celimaysid waxaad tissuega ayaad ku xiraysaa saas ugu xiraysaa hadday tahay midii la xiray haddii kalena waa ku tegaysaa fariintaas waxaan rabnaa dhammaan dadka in lagu dhiirogeliyo inay duubaan ayna sii tabiyaan si aan uga hortagno cudurkaas isaga. Wassalaamu calaykum.